قصة maanta waa tu aad iyo aad u xiiso leh. Asalaamu calaykum ayuha al-axibba al-muxtaramiin. Asxaabta qaaliga ah, maanta waxaan ka warramaynaa qiso aad iyo aad mucjiso u ah, cajiib ah, wax badanna insha Allah aanu ka kororsan doono. Beri hore ayaa waxa tagay magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq wiil dhalinyaro ah oo raba inuu ka shaqaysto. waxa uu qol ka kireystay meel hotel ah kadibna magaaladii ayaa waxa uu ka bilaabay inuu ka shaqaysto. dhaqaalaha maalintii soo gala wuxuu u qaybin jiray 3 qaybood. qaybta koowaad wuxuu ku sameyn jiray wuxuu ku maareyn jiray nolol maalmeedkiisa, cuntadiisa iyo wixiisa. qaybta labaadna wuxuu iskaga dhiibi jiray ama ku bixin jiray kirada qolka uu degan yahay. qaybta saddexaadna wuxuu u diri jiray waalidkii iyo caruurtooda oo yaryaraa. kadib sidaas ayaa uu in muddo ku shaqaysanayay. waxa dhacday in shaqooyinkii ay yaraadaan, shaqo la'aan bahsana ay dhacdo, isagiina deyn badan lagu yeesho oo uu deymoobo, qolkiina lacagtiisii uu awoodi kari waayay inuu iska bixiyo, ilaa ay gaadhay in ninkii qolka ka kireeyay uu u qabtay muddo 3 maalmood ah oo uu ku yidhi 2 mid baad soo geli doontaa. 3 maalmood gudahood inaad deynkaygii ama deyntii aan kugu lahaa aad iskaga soo bixiso, iyo wiil yahow qariibka ahi in aan ku xidho. ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu galay magaaladii, waxa uu wareegay magaaladii, waxa uu isku dayay inuu helo cid bal wax ama deyn wuxuu siisa ama deeq inuu deyn ama deeq wuxuu ku helo, laakiin intaba wuu waayay. kadib waxa uu ku sii jiray inuu magaaladiisa sii wareego ilaa uu soo galay xaafado cidla ah oo wax dad aysan deganayn. waxa ku yaalay markaa qol yar oo aad u yar. qolkii ayaa markaa uu damaaciyay oo hunguri ka galay inuu qolkan haddii laga karaynayo inuu bal eego oo kiraysto. albaabkiisu waa furnaa. qolkii ayuu galay. kadibna wuxuu qolkii ku dhex arkay oday duq ah oo uu u kala garan waayay inuu yahay jinni iyo inuu yahay insi. balse odaygan waxaa haya sakaraatul mawtkii, laakiin waa uu miyir qabaa oo kala garasho ayuu leeyahay. odaygii ayaa markii wiilkii u soo galay ku yidhi, wiil yahow, waa xaalkayga waad arkaysaa, ilaahay baa ii kaa keenay, hadal badan ma awoodo, daqiiqadihii noloshayda iigu dambaysay ayaan ku jiraa. ilaahay dartiis waxaan kaaga codsanayaa inaad ii keento midhaha cinabka. waxaan u arkaa buu yidhi in ay yihiin qoodkii ugu dambeeyey ee noloshayda aan cunayo, welibana deg iigu keeno, hadda bax buu ku yidhi. wiilkii isagoo yaaban ayaa uu deg u baxay, waxaanu dhaqaaqay xagga iyo suuqa. markii uu suuqa tegayna wuxuu arkay nin cinabkii iibinaya. waxaanu ku yidhi, niyahow, nin sakaraad ah oo naftu ay kusii dabayar tahay ayaa cinabkan raba inuu cuno. wax lacagana ma hayo, laakiin dharkaygan aan sito rahmad ahaan iiga sii qaado, cinabna isii. ninkii waxoogaa cinab oo fiican ayuu siiyey. kadib ninkii dhalinyarada ahaa waa uu soo orday isagoo ka cabsi qaba in inta uusan gaadhsiin ay odaygii naftu ay deyso ama uu nafbaxo. kadibna odaygii buu u soo galay. odaygiiyo nool ayuu arkay, waxaanu siiyey cinabkii. odaygii wuxuu bilaabay inuu si deg ah u cuno cinabkii. ninkan yar ee miskiinka ah laftarkiisu gaaja haysay, cinabka hunguri baa kaga jiray haddii uu wax ka helayo, laakiin odaygii waxba kama uusan reebin uu dhammaystirtay cinabkii oo dhan. odaygii markii cinabkii uu dhammaystay ayaa waxa uu eegay wiilkii dhalinyarada ahaa. waxaanu ku yidhi, sanduuqaas fur, maal badan ayaa ku jira. wiilkii wuxuu u dhaqaaqay dhinacii sanduuqa, waanu furay. waxaanu ku arkay diinaaro dahab ah oo aad u tiro badan oo ku jira. lacagtaas oo qadarkeedu aad u tiro badan yahay.
markaas ayuu odaygii eegay markuu lacagtii arkay ee uu furay ayuu odaygii eegay odaygii ayaa markaa ku yidhi marka aan dhinto ee aan nafbaxo maalkaygaas adiga ayaa iska leh ee qaado wixii waajibaad ah ee qof muslim ah oo dhintay kaaga beeganna oo yacni meydka in la maydho iyo in la aaso iyo arrimahaas oo dhan lagu tukaday iyo arrimahaas oo dhanna adiga korkaaga saaran yihiin maalkaasna adigaa iska leh buu yidhi laakiin waxaan kaaga sheekaynayaa buu yidhi qisada maalkan buu yidhi waxaa lahaa walaalkay aniga iyo walaalkay waxaanu ahayn buu yidhi rag tijaar ah oo shaqaysta oo lacag badan haysta maalin maalmaha ka mid ah ayaanu maalkayagii u cabsannay budhcad weerar ku imaan jirtay deegaanka aanu safarka ku marayno ama safarka ku nahay ayaa jiri jirtay budhcaddaas oo dadka disha xoolahoodana qaadata xogta inay weerar soo yihiin ayaanu helnay waxaanan go'aansanay buu yidhi aniga iyo walaalkay in midkaayana uu lacagaha qaado oo uu meel ku soo qariyo midka kalena uu safarka iyo dadka la sii joogo kadib aniga ayaa noqday buu yidhi qofkii lacagta qaadayey lacagtii ayaan qaaday si aan meel ugu soo qariyo durugsan markii aan goobtii ku soo noqday waxaan arkay buu yidhi goobtii oo la soo weeraray badina dadkii la laayay oo meydku iyo dhiiggu uu meesha daadsan yahay walaalkay ayaan baadigoob u galay inaan ama meydkiisii ama noloshiisii ama dhaawiciisii wuxuun inaan arko maalintii oo dhan ilaa qoraxdu ay dush kululaatay oo saa'id u sii kululaatay waan wareegayay buu yidhi aan haraaday walaalkayna raq iyo ruux ama geeri iyo nolol midna kuma aanan helin sidaas ayaanan maalkan aan ku hayay haddii walaalkay uu dhiman lahaana dhaxalkiisa yacnii aniga ayaa lahaan lahaa awlaadna markaas walaalkay kuma ogeyn oo ma lahayn allaahuma salli calaa maxamed walaalkii markaa geeri iyo nololtoona maalintaas ay igu dambaysay sidaas ayaan maalkan sanduuqa ku jira aan halkaas ugu xafiday oo aan u hayay laakiin haddii aniga aan dhinto wuxuu ku yidhi maalkaas qaado wiilyahow dhallinyarada ahi ninkii dhallinyarada ahaa waxa uu yidhi isagoo hadalkii sii wata odaygii intaas markii uu dhammeeyey waxa uu neefsaday neefsigii ugu dambaysay noloshiisa wuu ashahaatay isagoo ku dhawaaqay tawxiidka oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam odaygii waa uu ashahaatay tawxiidkiibuu qoray kadibna uu nafbaxay wiilkii wuxuu yidhi markii odaygii uu dhintay ee aan hubiyey in uu meyd yahay waxa aan meel ku qariyey buu yidhi maalkii kadibna waxa aan baadigoob u galay cid meydka ii dhaqda oo kafanka ii gelisa iyo cid ila aasta sidii ayaan markaa meydkii ku xabaalnay markii xabaashii aan ka soo dareernay oo aan shaqadaas si fiican u soo qabtay dadkiina aan kala diray waxa aan u tegey buu yidhi ninkii cinabka aan ka soo qaaday waxaanan weydiiyey qiimaha cinabkii aan ka soo amaahday waxaanu igu yidhi waa 2 dirham oo keliya kadib lacag ayaan go'aansaday inaan ugu daro waxaanan siiyey 1 diinaar ayaan siiyey buu yidhi oo dahab ah waxaanan ku yidhi qaado adiga ayaa iska lehe waxaanan ka qaatay dharkaygii aan rahan ahaanta ugu dhiibay markii aan cinabka ka qaadanayay ee aan fara badhnaa wuxuu yidhi waan ka tegey ninkii waxaanan raacay dariiqa agmara webiyada dajla iyo furaat ee caanka waxaanan ku arkay buu yidhi maraakiib iyo doonyo waaweyn oo taagan oo ay dadku raacayaan doomahaas iyo maraakiibtaas oo ka shaqaysta daabulaadda dadka iyo badeecadda waxaan damcay buu yidhi in aan raaco balse waxaan u baqday maalkayga aan sito isla goobtaasi webiga agtiisa waxaan ku arkay buu yidhi nin miskiin ah oo aad u cabanaya duif badani ka muuqato basaasan yacnii dhibaato baahi darteed la ilmeynaya waanan u damqaday buu yidhi oo uu raadeeyey kadibna waxaan siiyey lacag
ninkii markii aan lacagtii siiyey dahabka ahayd waa uu farxay waxaanu bilaabay inuu qoslo oo ii sheekeeyo markaas wuxuu iga bilaabay sheekadii buu yidhi wallaahi maalmahan wax maal ah ma helin caruurtaydii iyo xaaskaygiina waxaan kaga soo tegay waxba la'aan cunto iyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyagoo aan haysan waxaanu intaa iigu sii daray buu yidhi hore waxaan u ahaan jiray nin ganacsade ah laakiin buu yidhi waxa ay dhacay walaalkay oo ahaa mid aan barako lahayn hantidaydii ayuu qaatay waxaanu noo qorsheeyey buu yidhi ragna dila oo nakhaarajiya laakiin ilaahay wuu iga badbaadiyey buu yidhi subxaanahu wa tacaala oo sidaas ayaan kaga soo badbaaday oo weli waan noolahay laakiin laga soo bilaabo maalintaas dhacdadaasi waxaan ahaa buu yidhi nin faqiir ah saas ayaan reer iyo caruur ku samaystay allaahuma salli calaa maxamed ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu yidhi sheekada uu miskiinku iiga sheekeeyey iyo tilmaamaha iyo calaamadaha uu ii sheegay waxay noqdeen buu yidhi sheekadii odaygii dhintay uu iiga sheekeeyey bas keliya waxay ku kala duwanaayeen gebagabada oo ah ninkan dambe inuu aaminsan yahay inuu walaalkii khiyaamay oo raggan laayay uu soo diray ninkaa kalena uu ii sheegay inuu walaalkii raq iyo ruux waayey oo uu saas ku waayey wuxuu yidhi markii aan gartay inuu yahay saaxiibulmaalkii ama ninka iska leh ee xaqa u leh maalkan anigu aan sito adduunyadii oo dhan ayaa mar labaad mugdi igu noqotay buu yidhi adduunka oo dhan ayaa ii madoobaaday shaydaankii ayaa ii waswaasiyey isagoo igu leh maalka yacni nafteeda ay ku sheekaysanayso maalka badhna sii ninkan badhna qaado laakiin wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ayaan xasuustay ilaahay baan shaydaankii ka magan galay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim ayaan yidhi kadibna waxaan ku yidhi ninkii odayga ahaa ee miskiinka ahaa walaalkayow maalkaagii waa kan anigu aan gacanta ku sito arag yacni weelka yacni alaabtan uu ku jiro arag oo garo walaalkaas ayaa aan is aragnay kadibna waxaan uga sheekeeyey buu yidhi walaalkii iyo sidaan isku aragnay iyo marxaladuu ku jiray iyo inuu dhintay iyo siduu maalkan yacni iigu soo wareejiyey iyo sheekaduu iiga sheekeeyey iyo maxaan ku idhahdaa halkii aanu ku aasnay arrimaha la xidhiidha markii aan maalkii gacanta ka saaray ayuu yidhi ninkii wuxuu damcay inuu wax iga siiyo laakiin waan ka diiday keliya waxaan ka codsaday buu yidhi inuu saamaxo halka diinaar ee aan siiyey ninkii cinabka aan uga soo qaaday walaalkii allah u naxariista isna wuu ila aqbalay buu yidhi sidaas ayaa aan kaga dhaqaaqay anigoo mar labaad faqiir ah maanta ayaan taajir noqday buu yidhi saacada ka hor saacaddanna waxaan dib u noqday buu yidhi faqiir iyo noloshaydu sidii hore ayay ku soo noqotay waan dhaqaaqay buu yidhi markaas anigoo wax allaaliya waxaan sameeyo aan fahamsanayn waxaan noqday buu yidhi markaa faqiir mar kale aad baan u murugooday haddana kadib dariiqii waxaan ku arkay buu yidhi rag ka socda maamulka iyo amniga deegaanka oo aniga i raadinaya waxaanay ahaayeen buu yidhi kuwo aan hore shaqo uga waayey laakiin waxay ii sheegeen inay maanta iyagu i raadinayeen oo ninkii wax u qori jiray ee kaatibka uu ahaa uu maanta dhintay isla markaana shaqadiisii ay bannaantahay shaqadaasna uu ku habboon yahay isagu inuu qabto gorgortan kadib lacag fiican oo mushahara ayaan ku heshiinay waxaana i siiyeen buu yidhi bil horumaris ah si aan dharkan iskaga bedelo dhar cusub ugu soo iibsado nolosheedina dib habeen ugu sameeyo oo aan isku diyaariyo lacagtii ayaan qaatay buu yidhi waxaanan markiiba aan abbaaray oo aan u tegey ninkii qolka iga kareeyey lacagtiisii baanan gacanta ka saaray buu yidhi xaalkaygiina maalintaas wixii ka dambeeyey aad iyo aad ayuu u fiicnaaday oo maalinba maalinta ka dambaysa aan u si fiicnaanayey maamulkii oo ka shaqaynayey
horumar ugu sameynayay ilaa aan noqday buu yidhi hadda aan qisada ka warramayo wasiir alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. halkaas ayuu qisadii kusoo gabagabaya asxaabay. qisadan halkaasay ku dhan tahay. waxaynu se qisadan ka faa'iidaysanaynaa oo ay rumaynaysaa aayadaha qur'aanka kariimka ah ee ay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda 2 iyo 3 ee ilaahay suuratu dalaaq inoogu sheegay waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuhu ilaa aakhiri alaaya. allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisuba run bay sheegeen. waxaynu iskugu dardaarmaynaa asxaabay inaynu iska ilaalinno maalka xaaraanta ah iyo waxyaabaha yacni muxaramaadka ah si kasta oo ay noloshu inoogu adkaato si aan ugu guulaysanno imtixaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina marsiinayo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana aan uga farxinno. waxaana daliil inoogu filan aayadahaas hadda aan soo xusaynay. intaas ayaan caawa qisadan kusoo koobaya kuna soo gabagabaynayaa. fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.